haddaba wakiilada dhinaca Somaliland ku metelaya wadahadalladaasi ayaa waxa ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe. goordhaweed maraan khadka telefoonka magaalada Addis Ababa kula hadlay ayaa ugu horeyntii waxaan weydiiyay maadaama lagu heshiiyay in bisha February la isugu yimaado kulan kale in la oran karayo heshiiskani waa mid hordhaca iyo in kale. heshiiska alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ma hadle waa furihii heshiis ballaaran la galo hadda wax Allah wax turunturoonka dambena hor yaala ma jiro hadii la yiraahdo waa turunturooyinkii magaalada saayay si loo heli lahaa heshiis buuxa oo waara oo ummadda u dana si loo gaaro waa turunturooyinkii hadda aan ka qaadna meesha hadii la yiraahdo halkaas markaa waxay wadadu way noo furantay insha Allah taala lagu gaariyo khayrkii nabadda marka qodobada ugu waaweynaa ku raagteen ama waqtiga badan idinka qaatay heshiiska maxaa ka mid ahaa waxa weeyaan Somaliland wixii mudmadu dhan ummadda walaalaha ilaahay iska baday in laga saaro mudmadu nabadeeda iyo laga shaqeeyo midnimadeeda laga shaqeeyo wixii tabasho ah na hadhow dib loo dhigo la hagaajiyo laga heshiiyo weeye ciidamada imaka jooga halkaas dhulkaas oo unrest ahaayo qulqulatooyin ka jirayna iyagana kolba tio la eegiyo nabadgelyada aagaas ay tahay tartiib iyagana ay fadhiisamada ku soo noqdaan ayaa ugu waaweyn ciidamada Faysal waxa tiri waxa ku heshiiseen si tallaabo loo soo qaado marka dambe loo arko in nabadgelyadu ay saamaxayso ciidamada waa laga soo wada qaadaya miya ciidamadu meelana waa waddanka dhexdiisa meelana waa saldhigyadooda waa u sax gobolka aaga meelana waa meel loo geeyo qulqulatooyin ka taansiya darkeen geeyo taleex iyo buuhoodle iyo meesha la yiraahdo magaalada Saaceel Afweyn iyo waxa loo geeyay waxa iska hor beeraha iska hor yimid dagaalada tribal fighting qabaa'il iska hor yimid baa loo geeyay taleexo kale darkeen geeyo kale kulanka labaad marka ee aad sheegtay bisha February inuu qabsoomayo ma ku heshiiseen xaq ka dhacayo laba meelood baan jecel insha Allah taala ma waddanka Ethiopia amba waddanka Imaaraadka ayaa laba meelood baan jecel mid ka dhaca insha Allah marka haddii heshiiskan hordhaca gaadheen oo imika xaalkii hoos oo dhan la dhameeyay maxaa gudaha shirka labaad ugu qaban weydeen wallahi waan jecelaanay buuhood lixta ku qabanaan jecelaanay alxamdulillah rabbil caalamiin لكن قولنا مجانا ساي خاتم آيات علاتي مكا دي هذا قولا خاتمات علاتي مكا ساي يوم كل احترامي وأنا أقولنا نقولنا قدومي فيصل أنتي وده هذا الله ذني أنا بلاد من وحمدة دار قرقرتنو كتاجنا قاب كله وده هذا ليو أو خاتمنا أي دولة يلا بمعمول سمننا كوا ده هذا شان إذا كنا الله هيدين وأرين جدها وسومالان ودحيسة وماملكي يدت شعبها ودقيسين وخلافه كدحيو إمك سيدابا كشريسان محوية هاي وجهنا سكور فريستين أنا الواحد وضد ولا ضد كني سومالان لذي استيد متشرها الاستيد باكتشرتا ودون كنا يقنا دي فاكتو استيدا مركا واحد دونان وحش يكتم ولا ذي لكن waxaan dad family isqabsataan ahna waa family conflict way arintani maamulaysa ay ma jiro waa family conflict waanu ka heshiinayna magac doonta la isku yeero laakiin waa hal family baan nahay marka ma waxaad leedahay maamulkii khaatumo imika way ka tanaasuleen sida hadalkaaga ka muuqata ma yaanu kuma way ka tanaasuleen waxaan ku yiri waxay doonta ha sheegteen waxaan nahay waa dad walaalo oo is wada garanaya magac doonaha siteen amba aan sidano arinteedu waa family وربما بهاد family conflict بوها مقعد دونها يسكو يرو اسفهمنينا وخلافنا جاي من مجرتو الحمد لله رب العالمين مركات سبسترس وكادنا وحي نحر كلام وكادنا مقعد معنا ملح marka wada hadallada wareegga labaad ee bisha February madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha maamulka Khaatumo ma idin kala soo qayb galayaan adu gudi baan sameeynaa 10 cisho gudaheeda لما دينعه أو شو اللي وضع الشقي سو كسر وضع الشقي سو الشركة تنبه شو وضع عيو يجينا كور سوق الدنيا إن شاء الله تعالى وحي سوق بيع. فيصل سيد اللي جوا ورها يو
ilaa 19 markii Somaliland lagu dhawaaqay dhibaatadan deegaamada Khaatuma imika ka taliyaan ka jirtaa way soo taagneyd marba wajay lahaydba ma oran karaysaa heshiiskani wuxuu bilow u noqonayaa in dhibaatada imika laga gudbayo arinta maanta dhacday waxay soo afjarisaa wax alaay wax khilaaf taagnaa amba bilaabno 2012 oo sameysantay Khaatumo amba intii ka horeysay SSE mid la ilaahay jirtay amba intii ka horeysay adu ay jirtay magaalada Saay Suluk ka jiray dadka deegaankaasa waxaan filayaa in arintani soo afjaraysa insha Allah ta'ala waxaan ku xigsiin doonaa insha Allah ta'ala iyadana sanaagta bari beelaha dega inaan ku xigsiin doonaa waxaan jecel insha Allah ta'ala Somaliland midaysan oo dalkooda la kala sheegeen marka Faysal adigu waxa tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid wada hadaladan imika waad ka qayb gashay sida laga warhayo xisbiga kale ee wadan iyagu kuma jiraan wada hadaladii DB weel la galayay imaaraadkana waad ka qayb gashay bariyahan xan baa jirtay oranaysa Faysal xagga dawladdu u badan yahay marka arintani ma muujinaysaa arinta la sheegayo anigu horta waa mid kii DB kamaan qayb galin waan arood meesha shiru jooga ayaan la kulmay oo waan la kulmay saaxiib ma la kulmay laakiin waxaan ku sheegay kan Khaatuma ka shaqeeyay wax aad waqtigan ka shaqeeyay dawladdu xitaa kama interesaareen ilaa 2012 tadiinkii ma ka shaqeynayay meesha looma eegin xusbi la'aan waxa loo eegay shakhsiyaad iyo wax ka tari kara wada hadalada iyo wax ka hadlay waxa ku jira awil baa ku jira oo xusbina ahayn ambassador awil baa ku jira xusbina ahayn labadiyada laakiin awil waa la taliyaha madaxweynaha imika Soomaa madaxweynaha laakiin 720 waxa jira la taliyaha madaxweynaha xusbi ahaan la igama keenin awilna taliyahan looma keenin la taliyaha madaxweynaha waliya arinta wax ka qaban karaya oo experience leh oo waxa fahmiya oo wax ka tari kara iyana loo soo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid ee Somaliland oo goor dhaweydii ugu waramayay khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa